saaka ilaa ay xalay waxa uu ku baahay baraha bulshada way Soomaalidu isticmaasho waxaana laga soo duubay gabar Soomaaliyeed oo da'deedu yar tahay gabadhan oo ehelkeedu ay ka soo wadeen wadanka Mareykanka ayaa la keenay gudaha wadanka Kenya qaasatan magaalada Nairobi iyadoona wixii intaasi ka dambeeyay mas'uuliyadii reerka ay ka reebteen kuna sii daayeen magaalada Nairobi gabadhan ayaa silic iyo rafaad martay iyadoona ay gacanta ku hayeen boolisku hadaba gabadhan ayaa soo baxsatay waxay iminka la nooshahay reer Soomaaliyeed waxay ka sheekeynaysaa nolosheedii hore iyo iminka waxa ay ku sugan tahay bal aynu isla daawana muuqaalkeeda okay abay magaca Istaha ayo Istaha Ali abaha magaci Ali ayo Ali Abdi intee ku nool abaha America shaqo ka shaqeey jirta abaha ka shaqeeya pilot miya ilaa adii yani xageebu u kala shaqeeya pilot nooceeya Australia New York Australia uu kala shaqeeya okay hooyada magaceed Anab ayo Anab Abdullah hooyada address number ma ka haysaa even abaha cidna kama haysid number okay cousin kaaga neighbors kaaga daris kaaga waxa ka haysid number male address ma taqaanid Nairobi hooyadin goorma idin keentay America maxaakiimada toddoba sano ka hor ka imaateen okay xaafadda markaad soo jirtay Nairobi Isli okay xaafadda Isli way kala badan tahay section keebaad ku noolaydeen section 1 عندنا كم تقانيد نسلي وقرر هدي الجوجي مقرنا صحافة دالي سكول كمقعي الحكمة كلاس كيف هذا هيد كلاس 3 أوكي إثيوبيا قرمة إماتين أوكي أدس أنا حاجة أنا تسوي بقرمة إماتين 12 August 9 months 9 months بعدين جوكتان اوكي مركو كوغورس اتساوي ماتي حافظي ماتي قالتي هذا قالتي عيد ما كقرنسا هبيرتا ما قرن habarta hadii lagu geeyo ma ka garanaysid gurigeedii sidoo kale gabadhan oo hadalkeeda si wata ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa sababtii ka dambeysay in ehelkeeda ay ka tagto iyo waxyaabihii la yaabka badnaa way la kulantay markii ehelkeeda ay ka soo dhaqaaqday hadaba waa kan iyadoo mar kale arrimahaasi ka sheekeynayso maxaa gurigii nooga soo baxday habarteeda gabadheeda baa dagaalay habarteeda gurigeega baxbay ku dhaantaa gabadheeda dagaasheen okay marka gurigeeda ka soo baxday xagee aad adiga meel ma garanaynin soo wadada police baa ka xeeyay police ka commission kala habeenaha ka saxay laba habeen kadib waxay geeyeen xarunta ciyaalka xarunta ciyaalka halka loo bilaabo ku xariisna meesha soo dhameeyay soo xarun kale baa liigay xarunta kale afar bilood ka xariisna 6 bilood ka xariisna wax kasta waa u sheegay family meesha soogaan anaga ma awoodno halka sida ku geeyna soo police ka bad ku wacdina soo police ka baa ku keenay hay baadhay police ka dibile baali police ka meel ku geeyna ma garino meesha tiliisa ka Soomaali xaafad Soomaali haadi xaafad Soomaali wax waa ka taayir meesha waa address wax ka haadi soo wax ka soo okay iyaga xaqan kuma keenay adii ma lagu hayo ku soo baxday ya okay Soomaaliya kale anaga aan ahayn ayaad kulanteena saragteen laba qof xagee keenay qof kale ma arkay Soomaali laba qof inta ku keentay labada qof ku keenay gabadhan Soomaaliyeed da'deedu waxay ka yar tahay 15 sano waxaana reerka ay ka dhalatay ay muujiyeen mas'uuliyad darro gabadhani ma ahan gabar ku noolayd Afrika oo hadalkeeda waxa laga dareemayaa in ay tahay ciyaalka qurbaha ku dhashay ee loo yaqaan say wallahi gabadhan iminka waxa gacanta ku haya dad Soomaaliyeed waxaana muuqaalkeeda ku baahiyeen baraha bulshada waxaana kula talinayaa dadkan inay geeyaan safaaradda Mareykanka waana meesha ugu dhow ee gabadhan laga caawin karo waxaan leeyahay eheladii iyo sidoo kale qaraabadii ay ka dhalatay gabadhan runtii waxa aad gabteen mas'uuliyad weyn oo idin saarnayd
dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ayaana had iyo jeer waxa la maqlaa gabar ayaa ilmaheedii laga qaatay ama aabba ayaa ilmihiisii laga qaatay arrintaas ayaana waxa ay tahay sababta ugu weyn in dadka qaar ay muujiyaan mas'uuliyad darro waxaana kula dardaarmaya waalidiinta Soomaalida inay arrintan ka digtoonaadaan maadaama ay dib u keeni karto carruurtooda lagana qaadan karo goor walba haddaba daawadayaal muuqaalkan sheergareeya oo la wadaaga asxaabteena si gabadhan Soomaaliyeed aynu u caawino sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janaalka subscribe dhahanaya gambaleelkana u furanaya habartida gabadheedu baa dagaalay habartida gurigeyga bax bay ku dhaantaa gabadheeda dagaasheen meel ma garanaynin soo wadada booliis baa ay kaxeeyay booliiska komishinka laba habeenaha ka seexday booliiska meel ku geena ma garanayno meesha tigeysa kartaa Soomaali xaafad Soomaali raadi habartida gabadheedu baa dagaalay habartida gurigeyga bax bay ku dhaantaa gabadheeda dagaasheen meel ma garanaynin soo wadada booliis baa ay kaxeeyay booliiska komishinka laba habeenaha ka seexday booliiska meel ku geena ma garanayno meesha tigeysa kartaa Soomaali xaafad Soomaali raadi habartida gabadheedu baa dagaalay habartida gurigeyga bax bay ku dhaantaa gabadheeda dagaasheen meel ma garanaynin soo wadada booliis baa ay kaxeeyay booliiska komishinka laba habeenaha ka seexday booliiska meel ku geena ma garanayno meesha tigeysa kartaa Soomaali xaafad Soomaali raadi